social mediaha markaad sidaa usoo furtid weliba tiktoka waxyaabaha ugu badan ee kaa soo horbaxaya waa dad dhibaataysan, waa dad dhibaato ka sheekaynaya, waa dad yacni ku argagax gelinaya. anigu tiktok aad uma isticmaalo, laakiin markii aan galo inkastoo restriction mode uu igu xiran yahay oo shaashadayda ugu horeysa aysan waxba kasoo muuqanaynin, haddana waxaan aad u arkaa dad mar walba dhibaataysan. I don't know ma contentiga ay algorithmka isoo xushaa, I don't know, waa fahmi waaye. laakiin mid aan ka barta waxay tahay wax kasta oo social media kaa soo horbaxa waxbay kaaga tagayaan emotion ahaan iyo aragti ahaan iyo fikir ahaanba waxbay kaaga tagayaan. inkastoo ay qurux badan tahay qofka inuu fahmo waxa ugu badan kaa soo horbaxayani waa waxyaabaha negativeka ah, waxyaabaha aan wanaagsanayn, waa waxyaabaha ku qalqal geli kara, waa waxyaabaha ku cabsi geli kara, waa waxyaabaha ha fikirkaaga xataa yacni ka dhigi kara fikir aan wanaagsanayn. marka hal talaan ku siinayaa, waa wax aniga ii shaqeeyey. halka talaan ku siinaya waxay tahay social media si aad isaga xakamaysid scrollinka faraha badan iska jooji. scrollinka faraha badan muuqaalada yaryar yacni mentally ayay ku dhibaataynayaan, caqligaagana ma aragtay wuu sii daciifayaa mar ka dambeysa muuqaalada yar ay ku bataan ama short maaragtay videoska ay ku bataan. u fiirso, tijaabana ku sameey. damo aad muuqaalada daawatid, damo aad badsatid, damo aad diiqa dareentid, damo aad caro dareentid, damo aad stress dareentid, damo aad maaragtay noloshaada inay wax ka qaldayin aad dareentid, mentally ahaan iyo physically ahaanba. marka talada kusoo jeedinaya waxay tahay maybe inaad qaadato way dhici kartaa, inaadan qaadanne ayadana sidoo kale way dhici kartaa. laakiin anigu hadafkayga wuxuu yahay qofka wax fahmaya caafimaad ahaan iyo maskax ahaan iyo qofnimo ahaan isku rabaa inuu isku bedelo ayaan siinayaa. iska jooji muuqaalada faraha badan, iska jooji scrollinka faraha badan, iska jooji. isticmaal waqti xadidan, isticmaal samayso waqti aad geshid, waqti aad ka baxdid, ku xiro waqti, ku xiro. anigu 5 minute ay igu xiran, 5 minute hadduu isoo saaro ma geli, waa isaga baxaa. marka waqti xadidan ku xiro social media, kadibna isaga baxa. maxaan qabtaa, waxaan qabta ma hayo, shaqo ma hayo, howl ma hayo, saan waay cudurdaarku ma noqonayso. waxaad dilaysaa qofnimadaada, caqligaaga, dadnimadaada ayaad baabiinaysaa. wax akhri, jimicsi samey, familkaaga, saaxiibadaada, reerkaaga, caruurtaada waqti la qaado. soo maxaa diiday? waxbaad isbari kartaa, xirfado cusub ayaad baran kartaa, noloshaada ayaad bedeli kartaa. dee maxaa diiday marka? waxaad qabato way jiraan, laakiin qorshe la'aanaa jirin. su-aasha waa waxyaabaha anigu aan dadka dhaho. wax badan ayaad qaban kartaa. marka daadaada dhallinyarnimadan waa daadaada ama daada ugu daabaysan ee qofka aadanaha soo marta. oo daada dhallinyarnimada ama dhallinyarnimada waa waqtiga ugu daabaysan ee qofka aadanaha soo marta. marka haddii aad rabtid inaad isbedel samaysid waad samayn kartaa, laakiin haddii aad rabin inaad isbedel samaynin dee adigaa go-aanka iskale. laakiin waxaan kugu talinayaa in aad scrollinka faraha badan iska joojisid, weliba bartan aan kugula hadlayo iska jooji. mentally way ku damage garaynaysaa, physically way ku damage garaynaysaa. iska ilaali.
peace.